kulanti wacan wanaagsan daawadayaal gebi ahaantiinba halkani waa aayaha channel ku soo dhawaada gacmo furan haddaad imika nagu soo biirtay fadlan subscribe saar asxaabtii horena haddaad ka mid tahay waad ku mahadsan tahay la joogistaada maanta waxaan idiin soo gudbin doonaa falanqeynta ciyaaraha xiisaha leh ee caawa la ciyaari doona Real Madrid iyo Liverpool oo isku biratumanaya Manchester City iyo Borussia Dortmund oo iyaguna is arki doona iyo kulamadii xalayto la ciyaaray Barcelona oo guul dirqi ah ka gaartay kooxda Real Valladolid xilli ay 90ka firimbiga afka lagu hayo oo Cismaan Dembele goolka guusha uu u dhaliyay iyadoona taageerayaasha kooxaha kale ee xalayto ku faraxsanaa bareejada ay la geli doonto kooxda Barcelona ay aad ugu xumaadeen goolkii Cismaan Dembele uu guusha ku raaciyay kooxda Barcelona sidoo kale horyaalka Premier League ayaa laba kulan ka mid ah xalayto ama shalayto la ciyaaray Everton iyo Crystal Palace hal ayay ku kala baxeen Wolverhampton waxa iyadu garoonkeeda 3-2 ku dubatay kooxda West Ham United ayaa iyadu wacdaro dhigaysa waxayna ka mid tahay imika afarta kooxood ee ugu sareeya horyaalka Premier League haddii aan fiirino afarta ugu sareysa waa City United Leicester City sidoo kale West Ham ayaa ku jirta kaalinta afraad Chelsea shanaad Tottenham lixaad halka Liverpoolna toddobaad ay joogto Arsenal haba sheegin waa kaalinta tobanaad waa tahay xalayto ayaa wax wada ciyaaray kooxaha Barcelona iyo Real Valladolid kadib markii ay ciyaartaasi ay ku soo dhamaatay 1-0 ciyaarta ayaa bilowgeedii hore waxay ku soo dhamaatay 1-0 iyadoona kooxda Barcelona garoonkeeda Nou Camp ay ku dhaafi weysay 10 xidig oo kooxda Real Valladolid ka tirsan ciyaaryahan Lionel Messi ayaa wacdaro muujiyay iyadoona dhammaanba kooxda Barcelona ay ka gooneed in kulankaasi guul muhiim ah ay ka gaaraan waxayna weerarkoodu ay ahaa mid isdaba jooga balse ugu dambeyntii markii seerigii afka lagu hayay ayaa ciyaaryahan Cismaan Dembele waxa uu dhaliyay goolkii guusha sidaana waxay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona horyaalka La Ligaha Barcelona waxa loogu hogaaminayaa oo kaliya hal dhibic waxaana ka horeysa kooxda Atletico Madrid oo leh 66 dhibcood kooxda Barcelona 65 Real Madrid qudheedu tartanka way ku jirtaa oo 3 dhibic kaliya ayaa lagu hayaa kulanka dambana waxaas arki doona kooxda Barcelona iyo Real Madrid El Clasico oo ah ciyaar aad muhiim u ah walow ay xiisaheedu uu iska gaaban yahay maadaama Ronaldo iyo Messi aysan ku xifaaltamaynin kulankaasi haddana Barcelona waxaa ka go'an in ay kor u sii socoto si markaa aanan looga saarin tartanka ay ugu jirto horyaalka La Liga dalka Spain aan kugu sii daray Barcelona kulamada soo haray oo dhan haddii ay badiso way ku guuleysan kartaa horyaalka La Ligaha dalka Spain waa hagaag caawa ayaa waxaa soo noqonaya koobkii dhagaweynaha ee Yurub aad looga xiiseynayay ee Champions League kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay soo dhaweey doontaa dhigooda kooxda Liverpool oo xifaaltan adag kala dhaxeeyo Liverpoolna waxay ka soo hayaami doontaa dalkaasi Ingiriiska kooxda Liverpool ayaa u biritumanaysa inay ka adkaato cadowtinimo hore ay u qabtay kooxda Real Madrid iyadoona wararka ay sheegayaan in ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo udub dhaxaad u ahaa kulamadani uu ka maqnaanayo garoonka sidoo kale ciyaaryahan Carvajal ayaa ka mid ah line-upkii hore ee laga adkaaday kooxda Liverpool waxa ka maqan oo kale ciyaaryahan Cristiano Ronaldo Gareth Bale ayaa isna ka mid ah oo isaga tagay labadooduba kooxda Real Madrid dhanka kale haddii aan fiirino xidigaha kulankaasi seegaya dhanka Real Madrid waxaa ka mid ah ciyaaryahan Eden Hazard waa ciyaaryahan xidig aad khatar u ah sidoo kalena ka soo ciyaaray horyaalka Premier League marka aad fiiriso taariikhda waayihiisii waxa uu ugu jeclaa in uu ka hor yimaado kooxda Liverpool muddo 18 jeer ayuu kaga hor yimid 4 kulan kaliya ayuu guuldaro kala kulmay wuxuuna ka dhaliyay goolo aad u fara badan marka Eden Hazard qudhiisu waa uu ka maqan yahay kooxda Real Madrid walow ay haysato xidigaheedii khadka dhexe u maamulayay kuwa oo iyaguna wacdaro muujin kara sidoo kalena Real laguma tashan karo waa koox rugcadaa ah sidoo kalena haysata 13 koob Champions League waxayna awoodaa in kulankaasi ay adkaato iyadoona jaaniska ugu wanaagsan ay haysato ay tahay Liverpool iyagu away ku soo ciyaaraya balse waayihii dambe away ama guri ma jirto koox walbaba ciyaarta ugu horeysa ayaa lagu kala baxaa ama guulo fara badan la iska dhaliyaa si marka kulanka dambe loogu tashanin taasna waan arki doonaa Real Madrid iyo wixii kala qabsada sidoo kale waxa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta Manchester City iyo Borussia Dortmund
Manchester City ayaa waxay ka dhisan tahay dalka Ingiriiska halka Borussia Dortmund ay ka soo hayaami doonto dalka Jarmalka. Man City ayaa iyadu nasiib wanaageeda waxaan ka mid noqon doonin ciyaaryahanada ee ka soo muuqanaya Sancho line-up-ka kooxda Borussia Dortmund. Macallin Guardiola ayaa aad ugu yaaban ciyaaryahannadan tirada badan ee aad u daadiyar sidoo kalena ay la soo shartagayso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund walow ay ka mid yihiin ciyaaryahanada ugu xiisaha badan ee garoonkaasi ka soo muuqan doona Marco Reus oo ah rugcada Haaland ayaa ka mid ah Hazard ayaa ka mid ah waa Torgan Hazard waa walaalka Hazard la dhashay kooxda Borussia Dortmundna ma ahan koox dab yar shidi doonta sidoo kale Manchester City ayaduna waxay la soo shartigi doontaa ciyaaryahannadeeda ugu wanaagsan Raheem Sterling iyo sidoo kale Gundogan ayaa ka mid ah ciyaaryahan Foden ayaa ka mid ah ciyaaryahan Bernardo Silva Rodrigo Kevin De Bruyne intaasoo dhan haddii ay wadato kooxda Manchester City qudheedu waa ay diyaarsan tahay ayaan isdhihi karnaa. waa tahay haddii aan fiirino kala sareynta dalka Faransiiska waxaa iminka qaatiyan ka taagan kooxda Paris Saint-Germain in hogaanka ay ku soo laabato horyaalka dalka Faransiiska iyadoona horyaalka Faransiiska ay hogaaminayso kooxda Lille waxayna ku haysaa oo kaliya 3 dhibcood. sidoo kale kooxda Monaco ayaa iyaduna qarka u saaran in ay hogaanka ku soo laaban karto waxay leedahay 62 dhibcood. Lyon nafsadeedu kama haarsano oo waxay leedahay 61 dhibcood. horyaalkaasi aad ayaa la isugu dhow yahay kooxdii kuftana waxay noqonaysaa in booskeeda laga faa'iideysto qeybaha dambe ee horyaalka gabagabadiisana ayaa malayn doona in lagu saadaalin doono kooxda ku guuleysan karta maadaama uusan ahayn sida horyaalka Premier League oo kooxda Manchester City dhowr iyo 10 ay ku hogaaminayso. dhanka kalena haddii aan fiirino ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda Liverpool iyo Arsenal ay wada ciyaaraan macallin Jurgen Klopp ayaa waxay shaashada qabanaysay isagoo la hadlaya ciyaaryahan Martin Odegaard oo ka soo jeeda dalka Norway sidoo kalena qaab amaha ugu soo biiray kooxda Arsenal waxa uu ka yimid ciyaaryahankani ama milkiiliyadiisa iska leh kooxda Real Madrid. xidigaasi ayaa waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay qaab ciyaareedka iyo sidoo kale shahda macallin Klopp uu soo bandhigo kooxdaasina ay tahay koox aad u wanaagsan oo jeclaan lahaa mar inuu ka soo muuqdo kooxda Liverpool. ciyaaryahan Odegaard ayaa markana wuxuu Janus u helay in boos joogta uu ka helo macalinka reer Spain ee Arteta. ciyaaryahankani ayaa sanadkii hore bishii January kaga soo biiray kooxda Real Madrid qaab amaah ah iyagoo marka ay doonayaan in qaab ciyaareedkiisa ay ku soo kobciyaan horyaalka Premier League-na dib ay ugu ceshato kooxda Real Madrid. laga yaabee Real nafsadeedu ma haysato ciyaaryahana gacan mugeeda maxaa yeelay qaar ka tagay iyo qaar iyagoo ka sii gaboobaya ayay ku sii socotaa kooxda Real Madrid waxaana laga yaabaa inay dib u ceshtaan ciyaaryahankooda Martin Odegaard. waa hagaag asxaabteena ayaha janaal nagala xidhiidha inta ayaan ku soo koobaya wixii ku soo kordha dib ayaan kaga soo gudbin doonaa ciyaaraha kubadda cagta ee iminka aad u xiisaha badan khaasatan horyaalka Premier League iyo sidoo kale horyaalada kala duwan sida Faransiiska Bundesliga dalka Jarmalka kama reebana horyaalka dhigaweynaha ee Champions League oo kulamadiisa ugu xiisaha badnaa caawa la ciyaaraya. waxaanu soo gali doonaan kulamadaasi 10ka caawisnimo ee xilliga geeska Afrika waxayna farxad u tahay Soomaali fara badan oo gudaha dalka Soomaaliya ku daawan doona iyagoona aanan ku dhafri doonin. intaan ku kulmi doono warbixinta xigta waxaan kaga tegayaa sida ay nabadgelyo.